Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada Subaristaan Channel. Maanta waxaan idiin haynaa barnaamij ku cusub kanaalkeena. Barnaamijkaas oo la magac baxay Shakhsiyaad ee daawasho wacan. Maanta waxaan halkan ka hadlaynaa sheeko ku saabsan nin la dhaho Mehraan Karimi Nasri oo ku magac dheeraa Said Alfred Mehraan. Ninkan waa nin ka soo jeeda dalka Iiraan, wuxuuna dhashay 1942. Waxaa iska dhalay dhakhtar Iiraani ah iyo hooyo ka soo jeeda dalka Scotland. 1973 ayuu wuxuu aaday dalka Ingiriiska soo jaamacad uga barto. 1974 wuxuu ka qayb galay mudaharaad lagaga soo horjeedo boqorka Iiraan xilligaas. Sanad ka bacdi wuxuu ku noqday dalka Iiraan, taasoo uu sheegtay in lagu xiray muddo 4 bilood ah, hadhowna dalka laga xiriyay. Mehraan wuxuu ku soo noqday Yurub, gaar ahaan dalka Belgium, taasoo u ogolaatay qaxoontinimo inuu dalkeeda gudaheeda ku joogo. 1986 ayuu wuxuu ka dhex arkay dalka, wuxuuna dabcay inuu Ingiriiska aado. Kadib wuxuu sii maray Faransiiska. Markuu Faransiiska galay ayaa waxaa laga xaday baasaboorkiisii, laakiin dalka Faransiisku uu ogolaaday inuu gudbo. Kadib markuu ka soo degay dalka Ingiriiska, gaar ahaan airportka Heathrow ee magaalada London, oo wax aqoonsiga laga waayay, ayaa dalka Ingiriiska waxay ku soo celiyeen dalka Faransiiska. Wuxuu ka soo degay garoonka Charles de Gaulle, kaasoo ku noolaa muddo 18 sano ah, kadib markii ay diiday Belgium inay aqbasho. 18 sano wuxuu subax walba kici jiray 5 subaxnimo oo ku qubeysan jiray suuliyada garoonka. Sidoo kale shaqaalaha garoonka ayaa dharka u dhaqi jiray. Inta uu halkaa joogay ayuu wuxuu qoray buug ku saabsan taariikh nololeedkiisa. Buuggaas oo laga sameeyay 2 filim oo kala ah The Terminal, filim Amerikaan ah, iyo Tombes d'Ixelles oo Faransiis ah. 18 sano ka bacdi baa laga saaray garoonka kadib markuu xanuunsaday. Hadhowtana markii la daaweeyay, laguma soo celin garoonkii, waxaa la geeyay meel lagu xanaaneeyo dadka guri la'aanta ah ama homeless-ka loo yaqaan. Garoonka wuxuu galay 1986, waxaana laga saaray 2004. Haddeerna meeshaas lagu xanaaneeyo waa lagu hayaa. Marka waran haddaad 18 sano airport kaliya ku noolaad, aan lagu ogolayn inaad baxdid ama gashid ama dalkaaga aadid. 18 sano sanadadii ugu dambeeyay waxaa laga dareemay ninkan inuu xoogaa khalkhalay joogitaankii badnaa oo meesha joogay. Intaasay nagaga eegtahay. Fadlan haddaad taageerto muuqaalo noocan oo kale ah, hoos ku soo qor like na saar. Haddaadan subscriber ahaynna, fadlan naga mid noqo oo subscribe garee kanaalkeenan. Mahadsanid.